عبد القادر نور ولاشي وكم تعبد لو هي walaalkay abwaan baasha xasan maxamed oo lagu hayo dhibaato aad u aan Soomaaliland waligeed ka dhicin dawlad kasta oo soo marta way maynaan arag mareynaan maqal sababtu tahay markii hore inamadan xarig baa jirtay baa lagu haystay hadii lagu haystay sawir xarka goyseen xarkaha inuu siciid oo ood weyna ah iyo meel magaalada ka baxsan ayaa lagu haystay kadib markii lagu haystay namadii xarkihii waa lagu waayay maxkamadda sharafta leh hore markii hore way sii deysay namada markay sii deysay waraaqihii la saxeexay ina oo siciid ba ka dabayimid markuu ka dabayimid wuxuu yiri waxaan inay namadii dib waa in la markii hore waxa inaan Rashiid ba soo damintay kadib markii caaqil Rashiid soo damintay uu dhigay maxaan ku dhahday hantidiisa ma guurtada ah waati habeenkii maxaan ku dhahday dana laga dabayimid saddexdii habeenimo ayaa la baxay markii la baxay ee inamadii haddana la xiray warkii waa la bedelay lama oran xarig bay jireen waxa la yiraahdo haddana mijaxaabin Soomaaliland bay ku hayaan kadib markii mijaxaabintii haddana lagu waayay xeer ilaalintu markii aan garsoore ay noo qabatay garsoorihii waxay yiraahdeen kuma kalsooni waayo way dureen garsoorihii kadib markii garsoorihii ay dureen ay garsoorihii eriyeen anagu waxaan moodana garsoorayaasha Soomaaliland inay mid walba cadaalad ku shaqeynaayo mid ay biir qaata oo la cadsiiyeen oo iyaga oo kala ayaa ku dhawaaqay 8 sano iyo $625,000 $625,000 inta ay iyaga ka daydayaan labada nin iska dilo waxa ka fiican labada nin uu dilo sababtu tahay maatibu ka xiray walaalkay weeye markii la xiray uu soo qaaday iyo ilaa iyo maalinka maanta isniintu dadka tusa markuu isniinta tuso saldhig ku jireen saldhiga booliska ku jireen iyadoo oo saldhiga ku jireen maxkamadda aanay sii deyn oo ina maxkamadda oran jeelka hal la geeyay habeen madow la baxay markii la baxay ayaan subaxnimadkii aan ugu tagay wuxuu ugu walaal walay qaaday meel ay geen doonana Allahu a'lam waxa weeye Soomaaliland dhibaatada ka jirta oo ku xunnahay anagu Soomaaliland waan ku xunnahay Soomaaliland dhibaatada ka jirta inna Soomaaliland وكو ترحيصيا لأنه Soomaaliland تعدي بوجو ترى تعدي بانو جرنا لحظة بقول يا شني لا تنك كوني $1 مركو أنا قلنا لا يوم وصبيحيين أو سعيد لعكتي كان بيك كقولين أنا قد احتاجيان مركين الله يان هذا سوقاتان كدب هنتظر يدها قاتان لكن لبضن نين هاي سكدلان مركو هري عدلان نين كانوا قبيه وحبا موصبين كي قبي قال Soomaali كي قبيي كي هبلها عايي لما صوبن درجة لسيء كي عن وحبة السمين كي عن وحبة السمين مسكين كهانة وحتيركو كتير كي انت عاينا لما حكمين ما انت وحوية جرحة جديد وحوية محكمة بردن كذا عيو كيري أنا قوم رقوار كويس أنا نيك جرحة جس حير العالم تانا تري حير العالم تانا تري مركا أناكو وأناكو حنا هاي دبعتنا لبو هيو lagu hayeen nimanka kaligood maaha 150 nin oo iskir xajisan ku xiran waa ku xunnahay dhibaatada lagu hayo hadii ragu kici waayaan dumarka kici jabada marka waxa weeye anagu Soomaaliland ma nihin maanta laga bilaabo caaraanu nahay Soomaaliland ma nihin anagu cadad waxaan loo jabhad caara ka tirsan ayaanu nahay haddaan la xidhaysi haddaan ugu guraysan horeba waan ugu jirnay imma kana inta ku jirtay kalena nin inta ku jirtaana kama naxdo anaguna ka dhiximayno musabiixiyowna kursiga saarnaan maysid waa ma gaari baa jirta waa dhiman nolosha haddaad ku joogtana intii aan lagu talagalay way dhamaan ومركا متكلا فولي إن شاء الله وحنا كبرينا إلهي لنقدر حاجة صنوصارو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.